kulantii wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan barnaamijkii caadiga ee dhinaca baraha bulshada mar walba aan ka daba keenayna runtu sida ay tahay kooxaha lugooyo ee ku gabaadka ka dhiganaya baraha bulshada ee propagandada ka shaqeynaya ee isku arkay inay saameyn ku yeelan karaan nidaamka dawladnimo iyo qadiyadda Djibouti taasoo marnaba aan suurta galayn nidaamka dawliga dalka Djibouti ma aha mid lagu soo dhisay baraha bulshada ama kooxaha lugooyo ay wax kaga qaadi karaan propagandada baraha bulshada ay la dhaxfadhiyaan nidaamka iyo dawliga ka jira Djibouti waa mid ku imida sifooyinka caalamka ay ku imaadeen madaxdu iyo dawladdu ay ku timaado oo loo maray dhabo codayna si loo helo hoggaan wanaagsan oo ummadda hoggaamin kara nidaamka noocaasa ma aha nidaam laga khalkhalin karo dhinaca baraha bulshada isla markaana isku dayaya inay moodayaan in baraha bulshada nidaam dawladnimo laga hoggaamin karo balse horay baa hadal nuxurkiisu ama lafdhabar u ah madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle uga dhawaajiyay oo uu sheegay iskoo la hadlaya bulshada dalka Djibouti runtii oo agta taala Djibouti beentu ma khalkhalin gelin karto bulshada reer Djibouti balse haddii aan nahay dadweynihii reer Djibouti ama warbaahinta Djibouti ka howlgashay RTN mar walba waxaan isku dayaynaa in aan propagandada sad iyo raatoon aan lahayn ee baraha bulshada lala fadhiyo ee la doonayo in lagu difaaci karo dambiile ama shakhsi dambi ka garay qaranka oo saameyn ku leh qaranka Djibouti dambigiisu cadaaladuna ay ka mari doonto sidii iyada ku haboonayd qofka dambiilaha in dadka isku dayaya inay gaashaan u noqon karaan inay yihiin dad iyo ku noqday rajadoodu tahay gurcod waa kuwa siyaasiyiinta isku sheegaya ama kuwa culimada isku sheegaya ee hore siyaasadoodu u noqotay madhalayska si kastaba aad barnaamijkeena caawa waxa ka qayb qaadan doona dhageystayaasha kala duwan ee barnaamijka ku xiran habeen walba saacadan Djibouti Afrikada bari waxaad nagala socotaan baraha bulshada si toos ah si aan macluumaadada dhabta ee dalka uga soo kordhino maanta ayaad arkaysaan gobolka Cali Sabiix koonfurta Djibouti sida dadweynuhu iyo ganacsigooda ee socodka gaadiidku ahaayeen oo dadka gobolkana uga hadleen in ammaankooda iyo degenaanshooda ilaashanayaan caasimadda Djibouti sida oo kale socodka gaadiidka dadweynuhu iyo goobaha ganacsiga dhammaan way camireen dadkuna waxay u tukaamaysanayaan sidii caadiga ahayd ayay u tukaamaysanayaan ay uga qayb qaadanayaan noloshii nolol maalmeedkii maalmaha ee qofka bini'aadanka loogu talagalay in uu ka qayb qaato si uu danihiisa gaarka ugu fuliyo balse waxa nasiib darro ah kooxaha taagta daran ee iyagu ka dhex wareegaya baraha bulshada oo iyagu qaarkoodba ay yihiin kuwa si jaajuusnimo oo dadban u shaqeeya laakiin Fuad waxa weeye waa nin dambi qaran ka galay dalka Djibouti iyo shacabka Djibouti cadaaladuna ay gaari doonto go'aanadii loogu talagalay qofka dambi qaran ka galay dalka Djibouti balse waxa dambigaas soo labeeyay in astaantii dalka direysku waa calanka dalka Djibouti inuu kaga imaado waddan ka mid ah wadannada deriska ee dalka ka baxsan waa dambi ummadda reer Djibouti laga galay inuu direyskaasina uga yimid Ethiopia waxa afkiisa ka qiraya ninkii halka uu la joogayay oo barkhad uu markii hore ku sheegayay inuu khiyaamay bal farsamayaqaanka codkii barkhadaan weydiita iskoo direyskii iyo labadii xidigood basito waa nasiib darro walaalahay waxa weyn direyskana darkasan anigu wali walaalkay Fuad Yusuf Aliba waan gartay wuxuu direyskaasi walaalkay Fuad Yusuf Aliba waa astaantii dalka direysku waa qarankii waa calaamadda ciidankeena badbaadada nooc ee dalka difaacaya direyskooda waxa nasiib darraa in looga imaado dal shisheeye oo Ethiopia la iraaho oo waliba muuqaal lagu soo galo dhinaca baraha bulshada oo la iraaho waa direyskii maxay ku tusaysaa mas'uuliyad darradaas maxay ku tusaysaa haddii aad tahay muwaadin reer Djibouti ninka direyskiisii uga imiday waddan shisheeye mas'uul darrada iyo aqliga gaaban ee shaqadii loo igmaday ciidannimada uu ku itaal daray inay halkaasi ka muuqato taasaa tusaale kuugu filan in direyskiisa uga imaado waddan shisheeye oo waliba barkhadna uu ku soo galo video intuu iskaga soo duubo ilaa waa direyskii waa dembi labaad waa arrin caloosha kaa ololayso in astaantii dalka waddanka loogu iibiyay ninkaas wuxuu la dhigan yahay nin calankii Djibouti ka iibiyey waddan daris ah waa arrin aad u daran
ninka aqligiisu halkaa taagan yahay mas-uuliyad darradiisu halkaa taagan tahay ayaa maanta inay isku dayayaan dad dana gaara leh oo isagaba arxan u qabin inay muujiyaan inay arxan u qabaan balse waxaa la yaab leh ninkii madoobaa ee maraykanka lagu dilay dembiilihii dilay siday uga mudaaharaadeen in sharciga la hor keeno balse laakiin dhinaca kale markaad ka fiiriso dad la dembiile ayaan u bannaanbaxaynaa oo daaha ay ugu jiraan kuwa siyaasaddoodu ay fashilantay waa nasiib darro laakiin reer jabuuti waxaan filayaa aqligiinnu inuu soo jeedo barnaamijka anoo ku sii guda soconaya anoo sii dul jooga eedaysanaha ama dembiilaha ku jira gacanta dawladda ee qaranka ka galay dembiga iyo shacabka reer jabuuti waa fu'aad yuusuf cali oo isaga la sugaya in cadaaladda la hor keeno iyadoo dalka jabuuti laga warqabo saamaynta cudurka covid-19 uu ku yeeshay caalamka ay suurto gelin weyday in cadaaladda iyo furfurinta dhinaca cadaaladda sharciga in laga maro balse hadda ay noqon doonto in cadaaladda la hor keenay sidii uu hadalka u dhigay mas-uulka ugu sarreeya dalka jabuuti ee golaha cadaaladda jaamac barnaamijka waxaan ku eegi doonnaa intaan u gelin jaamac iyo codadkiisii dabarkaale oo baraha bulshada inta badan isagoo sida jaraqaaga uga ciya waa kooxihii huwanta ee taalka darnaa ood mooddo inay sii kala baxayaan ay faraha isku fiiqayaan oo arrintuna ay ku saabsan tahay arrinta fu'aad wuxuu qirayaa dabarkaale in fahmi maxamed cumar waa fahmi furuqdhoon in uu isagu qayb ku lahaa fahmi iyo howlaha loogu talagalay iyo dhinaca Ethiopia isagoo isku dayaya dhinaca Eritrea inuu tago balse ay u suurto gali weyday laakiin fahmi uu yahay nin isagoo xayndaabka u dhigay ninka dhalinyarada ah ee eedaysanaha ee u xidhan dembiga iyo khiyaanaha qaran uu galay waa fu'aad bal hayni dhegaysiyo dabarkaale sida uu hadalka u dhigayo waa kooxihii huwanta ahaa ee baraha bulshada iyagu sidii baraha bulshada u muuqda inayba u tahayba kiniin ay qaataan oo dhinaca maskaxiyana bal dabarkaale codkiisa ila wadaaga codkayga ma ah waa dabarkaale dhegaysi wacan ku fahmi ila hadlayo aan la hadlayo inuu sidaacado la hadlayo fahmi wuu garanayay Lieutenant Fuad inuu Djibouti uu soo galay ya bishii 10keedii inuu soo galay oo 10keedii uu joogo maartay in Djibouti wuxuu soo galay ahayd 5 barkii 6 galno anna Fuad marka waxaan la hadlayaa in fahmi saacadu markay ahayd Djibouti 7 barkii 8 hablo macnaheedu waxa uu ogaa oo markii dambe way cadaatay uu ogaa in diyaarad lagu soo qaaday oo Djibouti la keenay laakiin aniga muxuu iska dhigay qofan ogeyn oo markuu live ku jiray intaas oo dhan qaad Fuad waa in la keenay ma in Ethiopia Djibouti loo dhibo ma hadalada baa socday bariyahan oo dhan dhowrka bariba Fuad intuu xidhnaa Fuad bishii 8 baa la qabtay 10keedii waa la soo dhibay laakiin 8deedii markii la qabtay iyo ilaa 10keedii dhalinyartaas movement patriot maalin walba way soo saareen Fuad in la dhiibin kise waxay cadaatay inuu fahmi uu garanayay in Fuad la soo geliyay Djibouti isagoo iska dhigaya markaas inuu Fuad wali Ethiopia joogo oo dhowr bari kadibna waa kii markii ruwaayada la sii waday Lieutenant Fuad walaalkii Canada iyo halkan kale iyo waxaan sameynaa group asmana kana sameynaa waa kan sidoo bon waa tahay kolle codkaasi codkaygii ma aha waa codkii dabarkaale waxa iswaafaqaya marka aad fiiriso dabarkaale waxa uu ka hadlayo iyo waxa uu ka hadlay Procureur General de la République oo uu sheegay in ninkaasi uu isku dayay inuu diyaarad la siibto uu dalka Eritrea ka dego balse Procureurka codkiisa intaan gelin nin kale ayaa ka hadlaya barnaamijka tooska ugu jiro kooxaha iyadu lugooyo waa dabarkaale waa huwanta kala socota ee timoogu si aan u xiirnayn oo hadda aad moodo inay isku fafakanayaan mas'uuliyad darrada iyo aqliga gaaban ee dadkaasi ay ka muuqdaan ee doonayaan inay qarankan iyo dawladnimadan tubta toosan ku socota inay saameyn ku yeelan karaan iyo kontaktoodu halka taagan tahay ni qarankii Djibouti direyskii Djibouti kaga yimid Ethiopia mas'uuliyad darradiis waxayna tusaysaa shaqadii ciidanimada inuu sidaa uun ku ahaa bal ninka barrana codkiisa aan dhageysano أنا
وحنا صاحبنا كما ديارتي أو كبي ويدي فؤاد أو جبوتي ويو فاميلتي يو فيديو برنامج صوري أيوة برنامج صوري ومركا ديارته وحو كلمة ديارته مركا إنه لك عيه إنه لك عيه ها وإلهي إرتري لقلو ها هي markii diyaaradda lagu supreme video kanu supremero soo bibliya ayuu farxad soo qaaday fuad inuu bishay هي أنا وحنا صاحبنا تبازر دماغنا جبوت مركز حاجة جايين أربعة ونحن ما يدري دواني حقوق بحيدر وسوقلي دري دواني مكان سوقلي بيجي مركا دليل كبحي دليل حاجة سبلا قطعي غير اوكي مركا ما يدري وكنت بليه waan gartay kolley waxa uu ku tubleeyay say doontaba ahaato cadaymuhu way iska cad yihiin xayndaabka iyo sida hadalka loo dhigayo iyo huwantii oo sii kala socota waayo waa dadka halka taagan ayaa ka sheekeynaya dawladnimo iyo mas'uuliyadnimo waxa weeye iyaa lagu aamini karaa qaran iyo dawladnimo dadka u bisil ama siyaasadda u dhown doloole ee dalkan iyo dadka ka naxaya dadkaasi kala socday timahoogu si aan u xiirnayn ayaa doonaya inay dadka dhalinyarada ah waliba iyadoo dadka dhalinyarada ah da'doodu u dhaxayso 11 ilaa 12 isku dayay inay lacag siiyaan oo meelaha isku soo sawira indhoo wax sameeynaya waa nasiib darrada ugu weyn balse waxay ka taagan tahay wax fashilmay amba lagu guul daraystay intee bay socon doontaa fuad waa nin khiyaano qaran galay dambi qaran galay waliba ku biirsaday dambi qaran oo kale astaantii wadanka Idriiska kaga yimid dalka Itoobiya waa ninka mas'uul darradu ay ka muuqato aqligiisuna uu kooban yahay laba video oo iska duubay fuad waxa uu sheegay in isaga oo ay ka muuqato wajigiisa wax dhibaato aysan ka muuqan heesaya muuqaalkiisa soo bandhigay oo u diray kooxihii lugooyo ee danaha gaarka lahaa isla markaana waxay ku yidhaaheen lugooyo lama anficin kani mid kale noo soo samee oo bulshada ku kicin karno fuad muxuu ku kacay markiiba qolkii uu dagaanaa musqushii uu aadi jiray xaashiyada inuu ku soo guto ayuu isla markiiba muuqaal iskaga soo duubay soo iska dhigaya qof dhibaatiya tiif ay ka muuqato kooxdii lugooyo kan baan anfacaya beelay baraha bulshada ku soo tuuray balse maxay soo kordhin kartaa maxay qaban kartaa laakiin qofkan ay u hadlayaan waa qof nuuceeya aqoon intee leeg baad u leedahay mas'uuliyad darrada qalaadka uu galay waxa kamid ah heshiiskii ciidanimo uu saxay oo qofku uu ka qayb gali karay siyaasadda maadaama uu military yahay oo uu jabiyay oo soo direyskiisa to ciidankiina ka tagin oo siyaasad faraha la galay waa meerkii iyo gabigay uga boodeen kooxdii lugooyo ilaa hadda lugooyadii la daba socota siday doontaba ahaato khiyaanada qaran uu galay bal waxaan dhigaysiinayaa procureur republic waa tahay barnaamijkii ayaanu ku guda jirnaa oo weli aan bartamaha ugu jirnaa bal procureur de la republic codkiisii hayni dhigaysiyo sida warbaahinta markuu la hadlay ee loo turjumay soo luqadda Faransiiska ku hadlay Djibouti, certains réseaux sociaux ces derniers jours aniga oo aan jeclayn inaan ka hordhaco garsoorka socda waxaan jecelahay inaan idinka warbixiyo in mudane Fuad Yusuf Cali oo ku dhashay Djibouti 29 Oktoobar 1983 ahna muwaadin reer Djibouti oo laba xidigle ka tirsan ciidamada cirka ee dalka Djibouti waxa uu go'aansaday 15 Maarch 2020 inuu si khaldan u kiciyo diyaarad ciidanka cirka Djibouti leeyahay si uu gaaro dalka Eritrea hayeeshee Fuad Yusuf Cali uma suurtagelin inuu kiciyo diyaaradda wuxuuna ku guuldaraystay yoolkiisa inta kadib Fuad oo fakad ku jira ayaa laga warhelay muuqaal u baraha bulshada soo dhigay isagoo wata direyska ciidanka cirka una hanjabaya madaxdiisa militariga sida uu sheegay garyaqaanku inta ka bacdi waxa taliyaha ciidanka cirka ee dalka Djibouti uu dacwad ka dhana Fuad u soo gudbiyay garsoorka qaranka isagoo taliyuhu u haystaa inuu si sharciga ka baxsan iskugu dayay inuu kiciyo diyaarad ciidanka cirka iyo inuu dil ugu hanjabay madaxdiisa militariga
fuaad yuusuf cali waxa uu mar kale iska soo duubay sida uu garyaqaanku sheegayo baraha bulshadana uu soo geliyey isagoo jooga dalka Itoobiya sheegayna inuu sii jeedo dhinaca dowladda Eritrea isagoo mar kale dil ugu hanjabay madaxdiisa militariga xeerlaaliyuhu waxa uu sidoo kale ka hadlay dambiyada xeer ilaalintu ku soo ogtay fuaad yuusuf cali 9 Abriil garsoorku waxay dhaqaajiyeen baadhis ka dhana dacwad loo haysto fuaad yuusuf cali oo isku dayay inuu xaday diyaarad militari iyo inuu xidhiir la sameeyay dalaan cadownahay ayaa uu xeer ilaaliyuhu waxa sidoo kale loo haystaa ayaa uu xeer ilaaliyaha guud hadalla liddi ku ah difaaca qaranka isla maalintii 9 Abriil waxa la go'aansaday in la soo qabto fuaad yuusuf dowladda Itoobiya oo tixgelinaysa ayaa uu nidaamka garsoorka caalamka waxay qabatay duuliye fuaad yuusuf isla kolkaasina waxay u soo dhiibtay xukuumadda Djibouti 20 Abriil 21 Abriil saraakiisha isku duwidda xafiiska ka hortagga argagixisada iyo dambiyada qorshays waxay u soo wareejiyeen garsoorka qaranka si sharciga loo mariyo iyadoo loo haysto dambiyada aan hore u soo sheegay 22 Abriil 2020 markii uu horeysay garsoorka uu hor yimaado waxa uu go'aansaday inuu ka jawaabo su'aalaha garyaqaanada waxaana isla maalintaasi si ku meel gaar ah loo geeyay xabsiga Gabood fuaad yuusuf waxa caawinayay tan iyo maalintii la soo qabtay qareen Sakariya oo kamid ah garyaqaanada dalka sida uu sheegayo xeer ilaaliyuhu dambiyada loo haystana waxa kamid ah inuu ku kacay khiyaamo qaran iyo inuu sameeyay isagoo sarkaal militari arrintaasi waxay si rasmi ah u khilaaftay qodobka 132 sida uu sheegayo xeer ilaaliyuhu ee xeerka ciqaabta dalka Djibouti qodobka 132 waxa uu sheegaya ayaa intaasi ku sii daray in dambi qarameedka in lagu ciqaabo dil isla markaana ay dhici karto in lagu ciqaabo dil xeer ilaaliyuhu wuxuu sheegay in hakad gashay dacwadda loo haysto fuaad yuusuf cali maadaama ay taagan tahay saameynta xanuunka COVID-19 intaasi ka bacdi waxa uu ku sii daray in garyaqaanka u doodaya fuaad yuusuf cali uu dalbaday maadaama xaaladiisa caafimaad aanay wanaagsanayn in la siiyo xorriyad ku meel gaar ah isla markaana la eego xaaladiisa caafimaad ha yeeshee waxa uu sheegay in xeer ilaaliyaha gacanta ku haya dacwadiisa uu arrintaasi ka diiday isla markaana fuaad uu dalbaday rafcaan hase ahaatee maxkamadda sarena ay ka diiday waxaan u sheegay in maalinimadii shalay ahayd ay u dirtay guddi khubara isla markaana soo qiimeeya xaaladiisa caafimaad iyo inuu qalmo in loo qaado dhakhtar dibadda isla markaana xorriyad ku bilgaadha la siiyo xeer ilaaliyuhu ugu dambeyntii waxa uu sheegay in xeer ilaalinta qaranku ay si daafurnaana oo ku salaysan sharciga iyo qiyamka dalka Djibouti ay dacwadda loo qaadi doono waxaan u sheegay wasiirka garsoorka dalka Djibouti inuu gudagalay xaalad lagu qiimeynayo dhammaanba maxaabiista ku jirta teelasha dalka Djibouti Xamse Geelle on Cable TV waan gartay kollay waad dhageysanayseen warbixinta idaacadaha kala duwan ee Soomaalidu ay kaga hadashay ayna ku turjuntay garsoorka guud dalka Djibouti oo uga hadlay xaaladdu siday ahayd khiyaano qaran inuu galay inuu aadana rabay dal aanu cadownahay oo ku soo duulay dalkeena ciqaabtiisana ay tahay in golaha cadaaladda la hor keeno wixii laga yeelayba laga yeelo maadaama khiyaano qaran galay uu saraakiisha ciidankana ugu hanjabay inuu dili doono laakiin fuaad intii Djibouti uu ku sugnaa oo militariga ka tirsanaa maxay ahayd taariikhdiisu wuxuu ahaa nin tababarkii loo diray aan soo dhammaysan oo ku guuldaraystay markii dalka uu ku soo laabtay oo isagoo sargaal ka tirsan militariga waxa uu isku dayay in bangiyada ka mid ah bangiyada Djibouti uu ka qaato dayn sida bangiga POA dayntii uu ka qaatayna uu bixin waayo oo isla markaana codsado in lacag laga siiyo gacanta sida biyetaashka loo yaqaano bangiga oo dacwad ku soo oogay waxa saraakiisha ciidanku ay garteen in lacagtii laga gooyo isla markaa isagoo ka qaatay waliba dayn dhinaca qalabka shirkadaha ama dukaanada iibiya waxyaabaha guryaha lagu dhisto sida etablissement Cabdi oo kale oo siiyay jeeg fooya oo lacag ay ku qoran tahay oo haba yaraatay aan ka shaqaynayn baananka isla markaa waxa uu isku dayay oo la goob telefoonada laga dirsado oo xiriirka uu kala sameystay shirkadda telefoonada ee dalka Djibouti isla markaana isku dayay wax dhaqaalaha inuu bixin waayo taasna ay keentay in dacwad ay ku furaan dacwado fara badan oo nafsadiisa soo gaadhay oo ku dayay bulshada kala duwan ee ganacsanaysta si uu ugu awood sheegto isagoo markaasi sargaal ah arrimahaasi oo dacwadahaasi oo loo geeyay militariga oo looga dacweynayo sargaalka dhibaatooyinka uu geysanayo cadaadis iyo sharciga sifooyinka dalka oo loo maray fuaad waxa uu isku dayay inuu xiriir la sameeyo kooxaha huwanta iyo ku qaran dumiska ah ee ah kuwa iyo ku dibadaha
ka hadlaya isla markaana aaminsan inay dalkani khalkhal ku furaan balse ay u suurtagaleen isagii laftarkiisa ayaa intay gebi la joogsadeen gebi ka tuureen taasina waxay keentay iyadoo Etoobiyana ay tixgelinayso sharciga caalamiga ee la xiriira dhinaca maxkamadaha inay u soo dhiibto dalka Djibouti iyadoo la ogyahay wadannada dariska haddii uu sargaal ama ciidan ka tirsan isku dayo inuu dalka dibaddiisa saraakiisha uga soo hanjabo isla markaana uu kicinaya kacdoon la xiriira in dalka weerar lagu soo qaado oo loo gacan geliyo wadannadaasi in dil lagu xukumo dambiilaha Fuad Yusuf Ali oo isagoo hadda gacanta dawladda ku jira isla markaana xiriir la leh kooxaha huwanta hadda sii kala tagaya Procureur de la République qaranka guud ee maxkamadda Djibouti sida hadda uu xaqiijinayo oo afkiisa kaga dhawaaqay in arrimahaasi ay yihiin arrimo iyagu u taala golaha garsoorka cadaaladda dalka Djibouti balse waxa is waafaqsan huwantii kolba dhinac u kala socotay aad moodo shaydaankii dhinaca timaha xiiranay dhinaca timaha ku lahaa isna timahoogu uma xiirno oo si kala safanayo isku cadeynaya dambiyada ay galeen iyo sida ay Fuad u anbadiyeen iyadoo taana uu qayb ka yahay Fahmi Maxamed Cumar iyo Rashiid oo ku magac dheer Ibn Bushra oo ka tirsanaa saraakiisha ciidamada militariga ujeedinta laga ayay ka lahaayeen in Fuad ay ku dhiiri geliyaan sida dalka ka baxaan sida uu dabarkaale qirayo oo sheegay isoo aan dalka ka bixin fiidiyoogii Fuad uu soo dhiga baraha bulshada Fuadna ay uga carro dalka dibaddiisa isla markaana waxa uu sheegay inuu ka warqabay Itoobiya in Djibouti ay keentay Fuad balse baraha bulshada dadka ku maaweelinayay isoo ka warqaba inuu sheegayo in Fuad la keenin arrimahaas oo dhan waxay muujinayaan daraanada kala duwan ee la xiriira dadka qaran dumiska ah balse dadka isku dayay inay dambiile daafacaan haba yaraatee waxay u soo kordhinayaan male iyagoo dhalinyarada da'doodu u dhaxayso 12 ilaa 11 inay u adeegsadaan rabo propaganda iyo mudaharaado taana ay noqonayso mid cadaalad sharciga Djibouti lala mari doono cid kasta oo isku dayda inay abaabusho dhibaatooyin la xiriira inay ku kala joojiyaan ganacsiga xorta ee dalka ka socda iyo muwaadiniinta iyo muruqmaalka ee subaxda u jarmaadaya danahooga gaarka taana waxa uu carbisan ciidamo gaar ah oo iyada loo xil saaray in ay ilaaliyaan ammaanka muwaadiniinta reer Djibouti maadaama mushaarkoodu uu yahay dhaqaalaha iyo cashuurta ka imanaysa qaranka Djibouti mid laga xukumo baraha bulshada maaha mid doorashada madaxweyne Ismaaciil Cumarna ay ku timiday baraha bulshada maaha waa mid ka timiday bulshada reer Djibouti inay codkooga siiyaan dawladnimada tubta toosan ka socotay dalka Djibouti cidna loogama daba fariisanayo taasina waxay qayb ka tahay shacabka Djibouti isku duubnidooda iyo badbaadinta qarankooga iyo daafacooga mar walba oo heelan balse waxaan isku daynaa iyadoo ay jiraan kuwa kale oo iyakuna hawaawigan iyo magaalootigan baraha bulshada ka socda riyadaasi run mooday oo ka hadlaya sida ninka dhalinyarada ah oo isagu ah nin isagu aan u firfircoonayn dhinaca ciidanka waa Mustafa Aadan oo ku shire oo ku magac dheer Rabadaan oo isagu ahaa mid askari kabraara oo militariya oo loo diray toobal dhinaca dalka Faransiiska markuu awoodi waayay in toobarkaasi uu soo gabagabeeyay waa calaamadii Fuad oo kale ayaa isku dayay ciidanka inuu ka carro goobtii toobarka lagu qaadanayay isagoo soo dhigay baraha bulshada soo direysita oo muujinaya filmaanta iyo riwaayadda musalsalka ay jarayaan kooxda Lugooyo iyadoo u badan yihiin dadkaasi dad itaal daran oo isla markaana shaqooyinkoogiiba gabay ninka Mustafa ee dhalinyarada toobarkii loo diray uu ka cararay isagoo awoodi kari waayay inuu soo dhameeyo ama uu ka faa'iideysto ninka Mustafa waxa uu ahaa nin isagu ciidanka ka tirsanaan jiray oo ahaa nin aan u hoggaansameyn shuruucyadii ciidanka uu saxeexay oo isla markaana intii ciidanka Djibouti uu ku sugnaan ahaa nin isagu waqti walba dambiyo gelayay isla markaana aan u hoggaansameyn sharciyada ciidanka militariga u yaalay haddii fursad uu helay dhinaca dibadda uu ugu baxo taasi waxay keentay inuu isagu awood waayo ciidanka oo uu ka cararo ciidanka bishii koowaad kowdeeda 2020 tan iyo intaana ma ahayn nin ciidanka ka tirsan nin isagoo dulgara oo yahay duurka ku jiray isla markaana raadsanaya noloshii iyo gurnadii reer galbeedku ay bixinayeen waxa uu ahaa Mustafa Aadan Shire oo ku magac dheeraa Rabadaan in xaaskiisa oo hal bila uu qabay inuu dibadda u baxay
balse waxa uu ahaa nin aan damiir u lahayn naxariisna u lahayn xaaskiisii iyo waalidadiisii oo da' oo u baahnaa inuu taageero ama uu wax u qabto maadaama ay ku soo tabceen dadka garaadkooga iyo noloshoodu halkaa gaadhsiisan tahay ayaa iyagu sheegaya in baraha bulshada reer Jabuuti uga sheegayaan inay waddo toosan u wadaan balse anagu waxaan aaminsanahay waddadii halaaga inay bulshada ku wadaan laakiin reer Jabuuti arrintaasi way u bislaadeen tani waxay qayb ka tahay reer Jabuuti inay dhinac uga soo wada jeedaan annagoo mar walba tixgelinayna kuna dhaqmayna hadalkii madaxweynaha Jabuuti oo bulshada reer Jabuuti u gudbiyay iyadoo runtii la hayo beenimo khalkhalgelin karto nidaamka dawliga ee dalka ka jira labadan dhalinyarada askarta ah balse kana fikirin ooriyadii iyo xaasaskay u dhaxeen fuad sida uu sheegtay inuu lix caruur leeyahay waxaan u arkaa nin qayr mas'uul ah oo lix caruur uu leeyahay isagoo isku dayay lacag iyo deemihii uu qaatay markii uu awoodi waayay ee dhaqaalihii looga gooyo dadkii dacwadaha soo dhigtay inay isla markiiba kooxihii huwanta ahaa ee taagta darnaa fuad oo dembi qaran ka galay dalka iyo shacabka Jabuuti oo maantana baraha bulshada lagu arkay dreeskiisii ay sitaan dhalinyaradii oo waqtigaas Itoobiya uu la joogay waa dreeskii hadda dreeskii qaranka calankii qaranka oo isla markaana xidigii ku yaalin inuu dal shisheeye uga yimaado waa dambiye istiirsanaya isla markaana liddi ku ah qarannimada iyo jiritaanka ciidanka qaranka ee dalka Jabuuti haybadoodii iyo sharaftooduna ay ka muuqato sida shacabka Jabuuti ugu gadaamay yihiin ay dalkooga u badbaadinayaan una ilaashanayaan xuduudaha dalkoo dhan ciidamo ayaa ku sugan har iyo habeen waxay u joogaan inay daafacaan qaranka cadow kasti oo isku dayaya inuu weeqo qarannimadan 40 sano ku soo caanamaashay nabadda ee bulshaduna ay ku seexato si kastaba ahaato horaa loo idhi wadaad qori buu qaataa Soomaaliya ayuu curyaamiyey wadaadada dalka Jabuuti bal cajiib maxaa isku ururiyay waadi inkaarada hadday wadaada yihiin hadday siyaasiyiin yihiinba bal ila dhageysta Cabdiraxmaan Good codkiisa waalidkii ayaa uu leeyahay waa maqli waayay fanna cawdu bika ma waalidkii ku dhalay bal codkiisa ila dhageysta ayaa hooyo dhageysan maysidee maqal bay ugu oran jirtay waxaan ku oran jiray hooyo waan ku dhageysan laakiin ku maqli maayo hooyo dhageyso ay maqal way baay hooyo dhageyso ay maqal ku tire hooyo waan ku dhageysanay kuma maqlaayo wala hawla wala quwwata illa billah kitaabkee la ii sheegan diintee la ii sheegan waa cajiib waxa uu yiri walaalahay muxuu yiri walaalahay bal codka waa isida ahaya walaal sharaf baan doonaynaa walaalaha lacag iyo adduunyo ka qiimo badan yahay lacag iyo adduunyo waan gartay farsamayaqaanka weydiisanaya oo codkaas waan gartay waxaan ku soconayaa barnaamijka gudihiisa culummada islaamka markay ka hadlayaan arrinta xuquuqda waalidka bal maxay ka dhaheen وصاحبهما في الدنيا معروفة لبدا والد إلهي وحي حقي ساهديكو إلى هذان كتك كأقبال مالي أما وحك صهرة وصاحبهما في الدنيا معروفة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين لبدا يدودان أخريي لبدا بإلهي وحكوت المامي والدكو إنو السمفلي هي أدون كان لوغو السمفلي دين توهيستا وحي دون تبها النقطة سيدا أوجد waxaad dareemaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala mansilada waalidka sida uu xoojiyey ama se uga warramayo bale marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyada qur-aanka ku ammaanaya nebiye ka mida ilaahay wuxuu ku ammaanay inay waalidkood qaar u samafalo ahaayeen saa daraaddeed baa ilaahay nebi yaxya wuxuu ku tilmaamayaa wabarran biwaalidayhi walam yakun jabbaaran casiya inuu ahaa mid u samafala labadiisa waalid mana ahayn baa ilaahay leeyahay waad maqlaysaan waa culummada Soomaalida xadiiska uu ka hadlaayo kitaabka Sheekh Good uu sito kuma jira miyaa
diinta ilaahay ka tag uun baad waalidkaa ka yeeleen wixii kale ka soo hadha waad ku qasbantahay waalidkaa inaad oggolaato dabcan muxuu yidhi bal codkiisii iigu celi alla beerka ayaa ololayaa waa hooye macaan ayaa hooyo i dhegaysan maysidee maqal bay igu oran jirta waxaan ku oran jiray hooyo waan ku dhegaysan laakiin ku maqli maayo hooyo waan ku dhegaysana kuma maqlaayo dhegaysatay maxaabaad u dhegaysanaysaa haddaad kolba maqlayn aawo diintii aawo cilmigii ilaahay wuxuu yidhi aawo rasuulkii wuxuu yidhi aawo qodha ay xeladaay reer jabuutow ma waxaasaad dhegaysataan ma waxaasaad dhegaysataan ma waxaasaa dawladnimo iniga sheekaynaya ma waxaasaa isbeddel iniga sheekaynaya ma dadkaasaad dhegaysataan oo inileh maamulba inii qabanaynaa ma kuwa waalidkii dhalay 9 bilood caloosha ku siday dabarka ku siday soo barbaariyey wax soo baray hooyadu nin baa idhi baa la yidhi hooyadii xashka geeyey oo idhi hooyo maan guday abaalkaagii waxaa lagu yidhi ayaan quraato qaydka ay dhabarka kugu siday oo ka dabcay halkii go'dayna maadaa buuxiyey arrinta halkaa taagan ninkaa sheekh buu sheeganayaa cilmi buu sheeganayaa dokteer buu sheeganayaa hooyadayna sidaasaan ku dhihi jiray sidaabay qabri ku gashay ayaa uu idhi iyadoo sidaa iga leh acuudu billaah makaabaad dhegaysataan makaabaa reer jabuuto wax inii sheegaya war ma dadka nuucaayaa wax inii sheegaya iyo dadka qaranka dembi ka galay ee mashaqaystayaasha ah iyo kuwa dalka dibadda ka jooga ee carruurtoodii iyo intoodiiba bannaanka geeyey ee gaalkii aan ka xorownay 77dii gunno u doontay jabuuti baa laydhahaa gaalkaad la joogtinna uu ka xoroobay noloshiinnii ayaa darxumo ah noloshiinnii ayaa gurcuda siyaasaddiinnii baad madhalays noqotay dadka halkaa taagan reer jabuutow maxaad ka sugaysaa hooyo ninka sidaa u hadlaya dhegaysta war bal iigu celi codkiisa reer jabuuti ay la wadaagaane waa sheekh cabdiraxmaan good sheekh ma dhahay anugu waa cabdiraxmaan good goodkana waxaanu aqaanaa maska dadka cuna daahir yaa shamis isida codkiisa ayaa hooyo i dhegaysan maysidee maqal bay igu oran jirta waxaan ku oran jiray hooyo waan ku dhegaysan laakiin ku maqli maayo yaa xawla walaa quwwata illa billah hooyo waan ku dhegaysana kuma maqlayo maxaad ka dhegaysanaysaa haddaad kolba maqlayn waa hooyo weeye wallaahi kuma dhegaysanayo xadiiskaad doonta haddaad ka sheegaysta wallah inaan ku dhegaysanayo reer jabuuti makaabay dhegaystaan makaabaad dimuqraadiyad uga sheekeeya dimuqraadiyadda aad nooga sheekaynaysaan ma dimuqraadiyad baa ilma 13 iyo 12 jir dhagax qaado dhulka shiid aad leedahay dimuqraadiyaddiinnu mataabaa waa kooxda siyaasaddoodu madhalayska noqotee dadka sidaa u hadlaya isma oggolo baraha bulshada isku weeraraan horey u kala tageen horey iskugu dhigeen xayndaab ma dadkaasaad aaminaysaan fa nacuudu bika iyo khiyaano qaran dembi ka galay dadka oo dembiile ah oo dawladdu gacanta ay ku hayso iyo mashaqayste bannaanka u cararay kolkay dawladdu ku qarash garaysay inuu wax barto qarankiisa siduu wax ugu soo barto hooyadii oo cada ka tagay iyo aabbihii oo cada iyo xaaskiisii oo caroos jadiida ah dadka noocaaya ayaa ina wax nii sheegaya kii hore baad ogeydeen fahmi furuqdhoon aabbihii oo gaajada iga xoreele warwaadi inkaarka hadduu wax inii sheegayo waa nasiib darro annaka wax nooma sheegayo barnaamijka ayaan ku guda jiraa weli cumar zoora baa ila joogo ka mid ah dadka baraha bulshada ka hadla oo sida tooskaa ugu jawaaba kooxaha iyo ku lugooyo cumar ku soo dhawo barnaamijka وما صدق خديرو انت برنامج كاغا ما تلقى محسونتي وكسو دوباهي waxaan salaamayaa bulshooyinka reejiga meel kasta ay joogaan dalka iyo dibadaba waxaan salaamayaa dhamaan suulinta wadanka waxaan salaamayaa bulshooyinka reedka reejiga iyo intii muuqaalka codka noole waxaan salaamayaa bulshooyinka reejiga waxaan salaamayaa asxaabta reejiga ee muuqaalkayga garanaysa meel kasta joogaan waxaan salaamayaa xukuumadda iyo مسؤولينta wadanka meel kasta ay joogaan ba salaam alaykum rahmatullahi barakatuh waan gartay intaan u galay su'aalahayga warbaahinta Soomaaliland waxaad moodaa inay u harkaan Djibouti inay isbaara u dhigan karaan
si ay dhaqaale uga helaan buunbuunista iyo propagandada la xiriirta baraha bulshada ee kooxaha lugooya ay wadaan maxaad baaq u diri lahayd maamulka Soomaaliland iyo warbaahintooda haddii maadaama shacabka Soomaaliland shacabkeeni iyo dad isku mid aan nahay baaqaad u diri lahayd maxay tahay Cumar horta Soomaaliland waa wadan aan walaalnahay waa wadan jaara waa wadan dalkii iyo dadkooduba aan isku dhownahay sababtoo ah dad badan oo xagga naga degaba xagga way degaan xukuumadda Soomaaliland waa xukuumadda aad madgaransa aan isku fiicannahay laakiin marka loo fiirsado amba loo dhaadhaco baadhe saxaafadda Soomaaliland madaxa bannaan leeyahay waxaad u aragtaa bariyaha dambe saxaafad ka fog xaqiiqada inay tahay oo propagandada madgaransa dad dana gaar ah ay la soo xidhiidhaan ay la hadlaan ay deesinayaan jaanis badan ay ku hadlaan laakiin Soomaaliland waxaan leeyahay xataa saxaafiyooyintooda kuwa madaxa bannaan leh xor bawtiin waddanka Djibouti waxbaa ka sheegin inaguma odhan karno anagu ma garatay xor bawtiin wax ka sheegtiin laakiin xaqiiqdu siday tahay inaad sheegtiin yaad qurux badan oo dhexdhexaadi noqoto sababtoo saxaafigu waa dhexdhexaadi weeyaan hadduu dhexdhexaadinayn ma garatay mucaaradkii iyo dawladdii iyo bulshooyinka reedka intaba u wareysinayn marka dhexdhexaadka maadeed wuxuu la safanayaa qoladan hubantay madkanasa fikirka madalista siyaasadoodu ay ku soo koobantahay madkanasa FC Lugoyo ay dadkeena kiciyaan unay madkanasa ayagoo barnaamij iyo madkanasa mabda u hayn waan naqaanaa khadiiro raggan mucaaradka waan la soo shaqayn jirnay waan naqaanaa waxay yihiin waxay gadaan iyo waxay gudaanba waad garanaysaa khadiiro 2013 bulshooyinta madkanasa siday u niyad kiciyeen bulshooyinta reer Djibouti dhalin badan oo kamid ah anaka naaydo madkanasa siday ay u marogeen waad garanaysaa xagga 2016 ay dhigeen inay ku heshii kar waayeen qof mas'uula oo doorashada uga qayb galaya ka inay iska soo doortaan ninba موقفkiisa iyo mabdiisa uu khabasnaa inuu la soo baxay wayna wada socdaan wayna kala socdaan miya wuxuu aan rumowday qodobada madaxweynuhu ka jeediyay waagii madkanasa gobolka dakhil 4 maaris ka jeediyay waa huwan buudi waan soo aragnay waan soo taabay waan gartay kolley anaku waxaan leenahay dadka reer Soomaaliland waa dad walaalahaya maamulka Soomaalilandna waxaan leenahay haddaad arrimaha la ogeyn in aad inkuna hoos u eegtaan daris wanaaga warbaahinta sida Hon Cable TV-na waxaan leenahay arrimaha inaad ka fiirsataan oo wixii xaqiiqa wixii maad aragtay aad ogtiin inaad ka hadashaan maadaama aad warbaahintiin haddii aad isku dayaysaan inaad propagandada iyo waxyaabaha la xiriira in wariyaasha qaarkood inay isku tusaan in qaab isbaaro oo kale oo ay doonayaan in ay moodayaan Djibouti in looga heli karo dhaqaalo propagandada ay kooxda huwanto laakiin waxaan leenahay fikirka waa fikir khaldan samacada warbaahintiinana aad hoos u dhigina Djibouti waa dal xora dal 24 sano xoriyada haystay wada dawladnimo toos ah oo lagu soo doortay sifadii dawladnimo Djibouti ay ka tariso baraha bulshada lagama maamulo Djibouti dawlad tubta toosan ku socota ayaa Djibouti ka talisa cid kasta oo isku dayda in qarannimada iyo mas'uuliyadnimada iyo dawladnimada Djibouti inay saameyn ku yeelatana Djibouti farabira ayay ku qabanaysaa eedeysana kasta iyo dambiile kasta oo qaranka iyo bulshada reer Djibouti dambi ka galana golaha cadaaladda ayaa la geynayaa ma aha ruwaayadu musqushi lagu talagalay inaad ku saxarooto in aad intaad gasho aad isku soo duubto musqul waa la yaqaanaa kuwa iyagu le waan daafacaynaa musqulooga way ogyiin sida ay yihiin siday doontaba ahaato xabsiyada dadku ay ku xiran yihiin meel uu jiibsado iyo musqul buu leeyahay muuqaalada hore ni soo gelin doonaa muuqaaladii hore uu iskaga soo duubay muuqaalkiisa sidoo ahaa sidoo uu heesayo jawigiisa dareenkiisa sidoo ahaa iyo muuqaalkan dambe bulshada in lagu khalkhaliyo la doonayay ka codsadeen kooxdii Lugoyo Cumar kolley baraha bulshada aad baad ugu xiran tahay Lugoyo kooxda Lugoyna aqoon badan baad u leedahay maxaad jawaab u haysaa horta laba mid baan odhanayaa raggan mucaaradka isku sheegay kala socday Yurubta jooga iyo qoladan cilmi isku sheega qoladan mucaaradku sheega war haddii aad rabtiin fagaaraha siyaasadda inaad si fiican ugu muuqatiin maaha inaad dana gaara aad ku kicishiin ma garatay dib
amba aad buunbuunisiin arrimo saad iyo rad aan lahayn dhegeystayaal ma garati inaad ku kicisiin maaha fagaaraha siyaasadda kaleya siyaasadda sideeda uga hadla siyaasaddu ninka mucaaradku maxay tusaysaa waxaan khadiir aan u joognay markii ay tirtimisay doorashada kursiga madgarasa Djibouti iyo Nairobi waan gartay inay qaar mucaaradka ka mid ah inay la safinayeen Kenya mucaaradnimadu maaha qarannimada Djibouti inaad hadda madgarasa dumishin maaha mabda'aaga siyaasadeed maaha inuu ka sareeyo kale xeer ilaaliyaha guud ee dalka Djibouti sida uga hadlayna waad arkaysay arintaas iyo sida isku waafaqeen kooxii ugu wanta ahaa in iyakuna ay assalaamu calaykum عليكم السلام خضير maadi ku soo dhaw barnaamijka wad la socotaan u malaynayaa aad iyo aad baan la socdaa khadiir aad iyo aad baan kuu salaamayaa waan gartay aad iyo aad baan u salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti marwada madaxweynaha iyo taliyaha booliska Cabdilaahi Cabdi Farax dhammaantiinba waan wada salaamayaa khadiir adigana aad baan kuu salaamayaa saaxiib waan kaa qaaday laakiin dabarkaale oo qiray khiyaanada qaran oo galay ninkaasi iyo dadkii waqtiga kula taliyay inuu cararo dhinaca Ethiopia dabarkaale waa qiray xeer ilaaliyaha guud ee dalka Djibouti procureur de la République-na waxa uu sheegay iyo arinta ragga ay ka hadleen isu sibay u wada dhacayaan Sheekh Cabdiraxmaan Good waad dhageysanayso hooyadii baan dhageysan waayay oo sidaas ay ku godgashay buu yiri bal adiga maxaa kaaga baxay arrimahaas horta khadar aad iyo aad baad u mahadsan tahay arrinta Cabdiraxmaan Good haddii aan ka hadlo Cabdiraxmaan Good waxaanu la yaabanahay isagoo maaha nimanka wadaadada ah Cabdiraxmaan Bashiir iyo Goodba waxa ugu daran maanta dadka ay hordinayaan waxa maanta laga hadlayo waddankeena in nabad laga shaqeeyo oo waxa weeyaan nabad lagu soo dabaalo waxa weeyaan procureur degree uu hadlay waddanku xeer ku leeyahay nidaam ku leeyahay laakiinse maanta waxaan arkaynaa khadiiro Cabdiraxmaan Good Djibouti dhex jooga laba waa inuu kala doorto inuu siyaasi noqdo iyo inuu wadaad noqdo waxa ceeba maanta adikaasyo ala inuu shicibka reer Djibouti uu kiciyo uu yidhaahdo dagaalama inuu carruur yaryar oo 7 jira 12 jira uu yidhaahdo kaca xashada waan ogey booliiska beeshii ku sugan Cabdiraxmaan Bashiir maanta waan maqlaynaa ma la aamini karaa maadi ninka hadda yidhi hooyaday waan ku dhageysanay laakiin kuma aqbalayo codkiisa aan soo deynay oo maanta sheegay taliyaha ciidamada booliiskan la kulmay oo yidhi ninka run laga aamini kara ma ka muuqataa ninka nacam waalidinkaar marka waalidkaaga inuu sidaa ku godgalay adigoo xaqiiqda aaminsan sheekhay culimmadan soo deynay inaad arkaysa uu lahaa wixii ka dambeeya labadaada waalid diintaada ka tag baad ka yeelayn laakiin wixii ka soo hadho ku dhani waad ku qasban tahay inaad yeesho say kugu muuqataa ma la aamini karaa qofka sidaasa wax alle waxa uu sheegay waxay ka dhigan tahay dareenkaas waa dareen aad u laxaw badan waa sidaas sheegtay khadiirow waxa weeyaan horta labaan u kala saaraynaa fuwaad waa nin reer Djibouti hadduu dembi galana dawladdiisiibaa haysa procureur waan maqlaynay waa la daweynayaa baa la yidhi si fiican bay dawladdu u hadashay dawladdeeda khayr ayaa la asiiyo laakiin waxaan ka digayna waxa weeye ninka yidhi hooyadeedaan ka dhegaysan waayey waktigii USA lama jooga maanta dawlad baa jirta qaran baa jira waddanku ciidan buu leeyahay nabadgelyadu adaaba soo duuba khadar waddanku waa nabad waa loo digay koloneelka booliisku ugula hadlay wuxuu ka yidhi waxaan adgoodin jooji baa lagu yidhi haddii uu joojin waayo afka faransiisku hadaa kastoo degdegisi galalwa qofna sharciga kama sarreeyo haddii uu dhibaatada uu joojin waayo dawladdu inay tallaabo adag ay ka qaado waa wax midaroodayiin dadka reer Djibouti waxaa leedahay qofka siba caq buu leeyahay anigana haygu ahaato inaan xaqayga wanaag iyo walaaltinimo ku doonto laakiin dhagax waan tuurayaa waxbaan jejebinayaa waxba laguma helo dadka reer Djibouti waxaan u sheegayaa waa kuwa dibadda joogayay waa kuwii shalay yimid ha la dagaalamo xalay waxaa la yidhi khadiirow hubbaa waddanka la soo geliyey ha la dagaalamo isku celiya dadka reer Djibouti waxaan u sheegayaa waxa weeyaan maanta madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ciddii meeshaan ka jirto حبنا وناجي ولا سنما كنتم لكن
waddan baa burburinayna waddanku ciidan buu leeyahay ammaankana ciidanka ayaa sugan ciidankana aad iyo aad ayaan u salaamayaa jarnaalka ciidamada ugu sarreeyo oo leeyahay hambaliyo maanta mas-uuladii bay ahayd ciidanka militariga jenaraal sakile sheekh ibraahim iyo ciidanka xoogga dalka hamba waan gartay mahadiyow aad iyo aad baad u mahadsan tahay barnaamijkii baan weli ku jirnaa kolley waxaan ku laami doonaa cumar zoora cumar ugu dambayn mahdina waad degaysanaysay dalka jabuuti ciidamuu leeyahay hay-ado ammaan buu leeyahay hawaawiga ay ku nool yihiin dadkan bannaanka wareegaya lugooyo saamayn tamartooda halkay taagantahayna waa la ogyahay reer jabuuti maxaad ugu baaqi lahayd horta laba mid baan reer jabuuti ugu baaqayaa ta ugu horeyso reer jabuuti waxaan ugu baaqayaa inay nabaddooda adkaystaan sababtoo maanta waaqic casharana hor yaalla waaqica casharka ee waddannada jaarka sida yaban ka dhacday soomaaliya ka dhacday aan la tacaalayna maanta dowladda soomaaliyana dib loo dhiso sidaa ka dhacday waddanka liibiya war nabaddeena aan ku adkaysanno nabaddeena aan dhowranno wixii aan xaq aadha madganaasaa aadha dowladda loogu leeyahayna nidaam iyo dariiqo loo maray leedahay waxaan ku darsan khadiirow waan gartay horta fuhaad waa sidaa uu sheegay ninkii minka hadlayey waa muwaadin reer jabuutiya khaladaadka loo haysto maaha in lagu gudo khadal laga galay wixii ay dowladdu mas-uuliyaddii ay u dhiibtay jeelka dhexee gabood ee mas-uuliyadda haystay ninkaasi xadhiggiisa iyo noloshiisa iyo siduu maarayn lahaa dacwad baa socota ay wasiirka cadaaladdu ay ku eegayaan siduu sheegay brokureer jarnaalkuba ma garatay waayaha ay ku jiraan maxaabiista reer jabuuti kow taasi waa tallaabo horle la qaaday maanta talabaad waxaa laga maarmaana qof kastoo muwaadin oo reer jabuutiya dembigii doonaha loo haysto inay xaqiisa uu helo waxaanay turjumaysaa siyaasadda madaxweynaha ugu dhaartay assalaamu calaykum farxan may maqashaa waad la socotaa barnaamijka ma fiican baanu la socdaa aad ba waxaan ku leeyahay hambaliyo felicitation si fiican baa dalka ugu shaqeeyay jurnaliist caynkaas oo loo baahan yahay dalka waa jeceshahay anigoon ku hambalyanayna caawa wax iga yaabiyena khadiiro waxa iga yaabay ninkan ingiriiskii laayiyada intaha qanaad nin waalan baa aan qaarka xalay noo gajisay shicibka reer jabuuti lacagta shicibka reer jabuuti baa la bixiyey cashuurta shicibka reer jabuuti baa laga soo iibiyey inuu ciyaaro suuq kaste oo isku kala jawaabaya inuu bahdiyo maaha ingiriiska ayaamahan dad waxaa soo baxay ingiriiskii bahdilaya oo mar hore oo ka tagay maxaa leeraha militeerka ciidanka ayaa iska dhigay dad shaqeeya weli oo xishoonay oo wax laga daadiciyey xumaan baa laga sida mustafa aadan oo rabadaan ku magac dheer oo ciidanka ka tagay iyo balaayada ummadda reer jabuuti ka joojiya dad baa u nool ayo walaalo maxay weydiin lahayd waan gartay waxaa ka mid a mustafa aadan shire oo rabadaan ku magac dheer oo isaga tababar loo diray markii uu awoodi waayey tababarkiina ciidanka iskaga tagay oo imika dareyskii uu ku haystay baraha bulshada la soo fadhiistay waa dadkaas qayr mas-uulnimadu ay ka muuqato hodayna ciidanka looga eriyey shuruucdii ciidanka iyo heshiisyaday galeenna ka soo bixi waayey intay ciidanka u sugnaayeenna shaqada lagu kari waayey ceebtii ugu xumeyd buu sameeyey iminkaaba laisoo diray baaskiisii shaqadii wixii lagaga eriyey waraaqadtii oo dhan imika laisoo diray aniga baas ka dhigay daawada reer jabuutiyo waan gartay farxan maxaa noobi karin buu sameeyey waan gartay kooxda farxan kooxda lugooyo maxaa isku soo ururiyey qaniisiin iyo waadinkaarin dadkii naarta maxaa isku keenay والله واحد دم ماشي وانتوا شيخ دنا ما انت يجي يابي شيخ دنا مودي ريسبكتابل او شيخنا او يدي بمدقيت هو ياب شيخ هو ده هو يدي انا ما حنو شيء شيخ كريجي وتانو كون ريسبكتين نك هو يدي دغيسان وايه سدو دانا انو دغيستو نك هو يدي مستر كاريغا سنبد ربط شيخو نبي جوجه الجبهه dalka u shaqee ummadda u shaqee ummadda diinta bar qayladan iyo buuqan dalka ka daaya
dalkan ma qaadi karayo inaan qabiil baxtuurnimo ma jeclin anagu waxaan oran karaya waxyaabo badan ma afkii ka buuxa inaanu sii dayno ma jeclin laakiin sheekhow xisho oo dalka ummadda reer Jabuuti wax fiican u sheeg wax muhiima u sheeg diintana bar laakiin kaca oo dila oo regime change waxa umanu baan demid baan ku jirnaa wax khayr qabo noo sheeg wax khayr qabo ummadda reer Jabuuti u sheeg sheekhow waan laga xismanayaa in badan baanu ku daawanay adiga Abdulrahmaan Bashiir abtiyo adna ummadda ka xisho ummadda reer Jabuuti isku diris ummadda reer Jabuuti abaal bay ku sameeyeen abtiyo xishooda ummadda wax u sheega wax muhiima u sheega wax caafimaad qaba u sheega kaca waa kula regressaysin dibigiin oo dhanba aad iyo aad baa u mahadsantahay farxaan waan ku salaamayaa barnaamij gabagab uu joogaa khayr baan ku rajaynaya aad baa u mahadsantahay waa tahay daawadayaal barnaamijku gabagaba ayaa uu marayaa tan iyo intaan dib u kulmi doona barnaamij kan lamida qaranka Jabuuti ha jiro dalka Jabuuti ha jiro shacabka Jabuuti ha noolaadaan xukuumadda iyo dawladda Jabuuti ee tubta toosan ku socota ha noolaato oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti dadka ilaalinaya ammaankeena ciidamada xoogga dalka ha noolaadaan jaranka ciidamada dalka ha noolaado taliyaha ciidamada bilayska agaasimka guud ee ciidanka bilayska ha noolaado mas'uuliyiinta kala duwan ee ciidamada dhammaantood sida jandaaranka iyo kuwa ilaalada xeebaha iyo kuwa jamhuuriga dhammaantoodba waxaan leenahay dalka iyo dadkaba way nagu kalsoon yihiin badbaadada dalka innaka ayaa nilii cigmaday marnaba ma khalkhalin garanayaan kooxaha huwanta ee isku tagay wadi inkaarka iyo qaniisiinta u badan ee iyagu wehelka ka daya gaalkii hore aan uga xorownay taasi waxay muujinaysaa waa dareenkii ummadda reer Jabuuti madaxweynaha Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar cimrigiisa Allah raajiyo marwada koobaad dalka Qadra Maxamuud Xayd hooyada hooyooyinka waxaan leenahay cadowgaagu ha jabo hore u soco tallaabo ka dheer ayaan ku rajaynaynaa cimri dheer iyo caafimaadna Allah ku siiyo haybadaas iyo sharaftaas iyo madaxtinimada mid anagu aan ku siinay maaha waa mid dadka Ilaahay ka timiday mas'uuliyiinta dalka dhammaantiin cid kasta oo wadiifo dalka ka haysa maaha mid anagu aan siinay waa go'aan Rabbi ka yimid cid walbana intii Rabbi ugu talagalay buu joogaa Allah inagu asturo ilaahayna haynila garab galo dadka taagta daran ee cayayaanka ee sida jiirka godadka ka soo baxay marnaba ma khalkhalin galin karaan bulshada reer Jabuuti dalkan iyo dadkan shacab baa u soo jeeda hore guumaystiiskaga kiciyay Allah xafida ciidamadeena qaranka shacabka reer Jabuuti hooyo iroole iyo cananuugbana ilaahay ka dhigo kuwa qalbigoodu uu yahay meel qura u jeedaan dalkooda iyo qarankoodana daafici kara barnaamijkan waxaan ila socotinay anoo Khadiir Cabdiya dhamaantiin meel kasta aad joogtaan waxaan inaga tagayaa daahir ya shamis nabaadiiniyo heestii Jabuuti marna ma aanu iloobayn farsamo yaqaanka ayaan ku codsanayaa Jabuuti waa dareen heeska Jabuuti ayaanu ku soo xidhanay barnaamijkeena waa inoo habeen kasta iyo baraha bulshada iyo difaaca qarankeena iyo mas'uuliyiinteena marnaba nama khalkhalgelin karaan huwanta iyo ku cayayaanka sida jiirka godadka ka soo baxaya ee iyaku lugooyo ee u kala qaybsan qoomuluudka iyo kuwa wada inkaarka fanacawdu bika waa dad laga deeriyay dhinaca diinta waxaan leenahay nacdali korkiina ha taalo reer Jabuuti way naga dhiga faragashadeen